kulmiya wuxuu doonayaa inuu qabiil inaga dhigo miyaan taa yeelaynaa sow shalay toola inagoo midaysan maynaa dooran maantana inaan musharax kala dooranno sow xaq uma lihin wuxuu doonayaa inuu idin qaybiyo wuxuu doonayaa inuu idin yidhaahdo reer baa loo jeedaa ma jirto reer loo jeedaa muusaan u jeednaa kulmiyaan u jeednaa waxaynu u jeednaa inaynu lafaha kala hadda lafihii hilibkooda may jamiiyadukaleen baasiga inaan kala hadda sababiyaaga ma tuudina reer wataalo walaalayaal dan baa lagu codayaa waxaad ogtihiin in magaaladan ay biyo macaan cabbi jirtay maantana waxaad cabtaan biyo dhanaantoo maaha xisbiga waddani oo musharaxiisii madaxweyne maantayna maqlayo waxaanu martuuga nahay inuu magaalada biyii macaan oo soo celiyo intaa markaan dhaafo walaalayaal codka maatu waxaynu rabnaa inaynu ku edbinno kuwa doonaya inay dowladnimadeenna ku ciyaaraan waxaynu doonaynaa inaynu ku edbinno kuwa doonaya inay suqeen jiraan waxaynu doonaynaa inaynu ku edbinno kuwa doonaya inay hantida keligood cunaa shacabkuna ka gaatoodo taa miyaan yeelaynaa walaalayaal walaalay jecel baynu nahay dalkan abbayaasheen baa inoo dhisay kuwa doonaya inay keligood yeeshaan kama yeelayno ugu dambayntii waxaan idinka codsanayaa 13 Noofembar 6 subaxnimo marka la furo qof kastaba musharaxa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga waddani iyo ururka kaa inaad ku hubsataan ama fariin gaaraan idiin sheegayaa codka labaad ururkayga kaabaad igu ridaysaan aad iyo aad baan mahadsantihiin guddoomiyaha ku soo dhawaynaya